jahannamo ayaa la dhahaa bay tiri kolkii la yiri magaca jahannamo kolkii ay sheeganayso oo mid qoslayso oo dhoola cadaynayso waxa haysataa wax faniya muuqaaladeeda meelaha yaacsan iyadoo shilimaad raadinayso gaale iyo shisheeye isu qaawinaysa oo caag gaal sameeyay ku qaylinaysa balka walaadii jahannamo la gelin lahaa caag baad la taahaysa gaal sameeyo ala sidii daanyeer gaajaysan ka walaado jahannamo lagu gelin lahaa soo yeeri lahayd بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما سمع الوين ميل بدونيدا كجوكتان الله وين وحنا كودا رجينا يا عافمات يا عبادة الصوبان يا عمل خير متك الصوب مراد له إن باهي مراتك سمت خير وقدي وكو حنا صنع عافمات تام سيو كان غيريودي جنة ودغونيد هوي ويا لو كله غيريودي سمري ما نكسي كودا شايستا باهي شاو بركه يكو دشو غاين بدر بركه سنسي امران dalkeeniyo nabad ee bulshada Soomaaliyeed oo midana Allah uu weydiisanayay intii noor u joogtay gacalo barako bay fariisiintii dib iga soo birtay wax bay joogin oo gacmo idin barkoobeen subscribe siida برنامج كان يفرينتا تنميد ku socda bulshada Soomaaliyeed oo waana inaan ilaashana dhaqankeena waa lama horaan tilmaan xun ay fidinayso mid magac u yaal ah oo magac Soomaaliyeed wadata iyo aragti nin Carbeed oo Muslina oo u sheegay inaysan Soomaali ahayn fisq iyo waxyaabaha xun ay sameynayso ayuu ka naxaya dabeetana wuxuu tilmaamayaa inuu yahay mid ka naxay aragti ahaan aan aaminsanin gabadha Soomaalida walow iyadoo ay sheeganayso inay Soomaali tahay wuxuu ka turjumayaa isagoo nin Carbeed dhaqanka Soomaaliyeed inuusan dhaqanka ahayn dad diin iyo anshax iyo edeb lagu yaqaan haweenkooduna maqaam iyo karaama ay leeyihiin hadaba tusaalaha kan waa tusaale lama horaan inay daawano fariinta tanna qof kasta oo Soomaaliyeed oo damiir leh waxa lama horaana inuu la wadaago kuwa dareenka iyo dadnimada name sorry about the question me my name is Jahannam أعوذ بالله no no لا حول yes yes my name is Jahannam أعوذ بالله يا لطيف and my second name do you want to know my second name no I don't know this is the first name is okay really what's your name what's your name iyada naag weyn qurbaha la keenay kontankan waxba uga dhinay afqalaadka xataa mid ku fiican oo fariidku ama wuu naxay ninku argagax baa ku dhacay ninkii labada daanbu gacanta mid mar saaraya not every Somali girl gonna wear hijab not every Somali girl not gonna wear hijab gabdhaha Soomaaliyeed bay tilmaamaysaa inaysan waajib ahayn xijaabka xirtaan na adu xijaab waxa waa dhaaftay oo kastuumadii baad digatay karaama beesho waa mid kale tan waalidkii dhalay yaan loo ishaareen oo loo iimay way barbaariyeen dhaqan iyo diin iyo wanaag bay filayeen balaayadaas ay noqotay kaaga daranta waa hooyo marka dadkii dhalay marna ma jecleen inay sidaa noqoto dadka Soomaaliyeed waxa ka dhaqana qof kolka uu xumaado ama shaydaan qaato ama uu duloobo ishaaro waxay uga dhigaan waalidkii war waalidku waxa kuma faraxsana ficilkaana dhashiisa iyo dhalaankiisa uma soo barbaarin tanuna de dhal lama oran kare waa qumayo aan xishoonayn facaas iyo falxumadaas ay joogtaa xilli loo duceeyo ma aha xilli kale to waxa weeye oo wax loo sheego way dhaaftay watan kale dadka qaarkood xumaantada wax u sameeyaan in la bariyo way la dheeraata ka soo noqo dadkaagu way ku jecel yihiin waa toobadka toobadu waa furan tahay qof kasta oo muslim oo godab gala ama qof kasta oo muumina ama gaal iyo nooc doona ahaade ilaahay waa wax lama horaan in loo noqo hase ahaatee wixii inaad ku noqnoqoto oo bulsho dhan oo maqaam iyo sharaf la magacoodii disho oo waxaan daryeel iyo dareen toona ahay so all I'm saying is that Somali girls are very beautiful when they wear hijab, are very beautiful when they're not wearing hijab. But one thing really stuck in my mind is that when I told you that I was Somali, you were so surprised. yes because wuxuu sheegay inaysan Soomaali ahayn oo ay Soomaali sheeganayso dadka marka uu la hadlay iyaduna waxay tilmaamaysaa gabdhaha Soomaaliyeed inay xijaabku ku qurux badan yihiin hadday xirtaan iyo haddii kale waxa la waraan haweenka Soomaaliyeed ee muslimka ah ee caanka dunida uga dhaqanka iyo daryeelka iyo diinta ee sharafta iyo milgaha leh kolka ay xijaaban yihiin way qurux badan yihiin oo waxa weeye waa asturnaantii nabigeena iyo tilmaamay basheeg kolka ay muhrankooda iyo waxa weeye de waalidkood ag joogaan ama ninkoodii la joogaan oo madaxa u banaan yahay ama ay qaawan yihiin way qurxoon yihiin hase ahaatee kolka iyagoo oo jooga banaanka ay qaawan yihiin ma qurxoona sababtuna waxay tahay waxa fududaanaya shaydaankii iyo kuwii xumaantada doonaya inay daryeel iyo waxa weeye dan ka doonaan oo macsi iyo sharci ka doonaan marka aragtida xun
waa in bulshadan laga waariyo waana in la ogaadaa nacnac furan iyo nacnac xiran qof kastaaba wuxuu dooni lahaa oo dhadhan ka raadin lahaa nacnac xiran gabar kastoo marka qaawanaanta loogu macno yeelayo gabdhaha Soomaaliyeed kuwa si fudud wax looga dhaadhicin karo oo ma garanaysaa mala awaala maaha waa kuwa dhaqankooda iyo diintooda ilaashada hase ahaatee kuwa dhalinyarada ah ee adduunyada ma garanaysaa ay dhalaalkooda hoodis wax leeyahay aragtida xun idinma fiicna dareenaha waalidkiina kaga tagaysaan aakhiradiina uma fiicna sida tan oo kale taalina ku maasanayaayo gacmaha dhabanada layna ka saarsanaya haye I didn't see it before. This is my because I didn't see before, you know. I didn't see it before like this. Wallah. Do you like men or do you like women? أعوذ بالله. No, I'm normal. No. I am no. La. Okay, my last question to you. Are you a virgin? Or are you... You're not... Are you virgin? I am. What? Well, I don't believe you. You never slept with more women? No, Never? Yes, meaning zina. No, I didn't make zina. Oh my God, so you are an angel from Jannah 2021. Oh. By the way, nice talking to you, sir. Nice to meet you too. Then, okay, bye. Bye. wajigaa gubaya iga tag buu yiri wajigu gacanta ka saarsanaya uu ka cararaya argagax baa ku dhacay oohin baa elintiisa ka muuqata iyo waxa weeye indhihiisa أنا أول مرة أشوف صومالية كذا أقسم بالله. يعني أنا كنت أفرح أقول الجالية الصومالية هي الجالية الوحيدة اللي محافظة على نفسها. حتى الصوماليين لا حول ولا قوة إلا بالله. wuxuu yidhi waa markii ugu horeysaan arko qof Soomaaliyeed oo haweenoo sidaas dareen ahaan waxaan aaminsanaa buu leeyahay Soomaalidu kuwa kaliya oo dhaqanka iyo diinta jaaliyad ahaan ay ku hartay dalalka Islaamka kolka uu tilmaamayo inay ahaayeen xataa Soomaalidii ma ka dhex bilaabatay buu yidhi oo masiibooyin haweenkii ma ka noqdeen argagax buu ka qaaday wuxuu qaadan la'yahay gabar Soomaaliyeed inay sidaa tahay wuxuu og yahay haweenka Soomaaliyeed inay yihiin kuwa dhaqan diin anshax edeb tarabi leh buu wuxuu og yahay gabdhaha Soomaaliyeed inay yihiin gabdho qaali ah wuxuu og yahay gabdhaha Soomaaliyeed inay yihiin kuwa lagu barbaariyay adkaysi waxa uu og yahay gabdhaha Soomaaliyeed inay ka qiimo badan yihiin dhaamanka iyo lulka wuxuu og yahay gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay tagaan saameyntoodu inay tahay mid islaam oo karaama Mareykanka haddii ay baarlamaan ku jiraan xijaabka inay la tagaan Sweden haddii ay baarlamaanka galaan ama siyaasad tagaan xijaabka inay wataan Norway la kadaal moodalka gabar iyadoo xijaaban timaada wuxuu og yahay iyadoo xijaabkeed ku faanaysa gabar Soomaaliyeed uu qaadan la yahay balaayada tan qaawan ee qowlalada dabeer kale ee magaca Soomaaliyeed sheeganaysa Bro, sorry. هي مش صومالية. She's not Somali والله. She didn't want sorry, but I'm respect people is coming from Somalia, you know. I'm like it these people because, you know, I don't know how is it. وقادن لا inay Soomaali tahay war wuxuu leeyahay fariisuul lagu qaadaysan maaha Soomaali wadadan ixtiraamo wadadan aqoon ku tumayo wadadan diin ku tumayo wadadan dareen wanaagsan ku tumayo tan balaayo kale iyo dad kale ay ka timi bal fariinta tan iyo fiidiyooga kan iyadu ay tilmaamaysan dhageysta sometimes mataqaanaa inta meel fadhiisto aan ilaahay dib dacwada ugu qabsadaa oon dhahaa ilaah rabbigayo nooc kasta oo iga dhigi karaysay but why aad Soomaali igu doortay inaan noqdo because wax kasta waad siin kartay bas Soomaali inay iga dhigto kaliya tamaysan hayn qoomiyad kasta jinsiyad kasta nooc kasta waa ogolaan lahayd hadaa siin lahayd but why aad iga dhigtay Soomaali dadka Soomaaliyeed kuma baahna balaayo ku aragtay dadka Soomaali bal hoosta ka gashay dadka Soomaaliyeed kuma baahna ku daafadii adiga isku qoray isku dhajinay maxaad u sheeganaysaa meelaha markaad shisheeyahay ajnabiga la hadlayso maxaad u sheeganaysaa maxaad magaca Soomaaliyeed ugu ciyaaraysaa ma in lagu bariyo lagu tuugaa doonaysaa in lagu yiraahdo gabar Soomaaliyeed magacaaba
adoo konton jir aad asaasaqday oo isqaawis qabiil baan lagu caayeen hooyada iyo aabaha baan lagu caayeen walaalaha iyo qaraabada baan lagu caayeen naag weyn oo difowda baad magaca Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedna kuma baahna gabdhaha Soomaaliyeedna ka qurux badan hoostaadii baa shilimaad siisatay meel kasta muuqaalkaaga oo liita yaala Soomaali ilaahay baa iga dhaliyay maxaa isku kay dhajinaysaa maxaa noo sheeganaysaa maxaa gabdhaha iyaga magaca u ciyaaraysaa maxaa hooyooyinka iyaga sharafta iyo maqaamka iyo karaamada magaca u ciyaaraysaa shilimaad baad isku qaawisay kaamarada ku hoos fadhiisatay naayaa midaan ku sheegaya ku daafad baatay disgustina foolxun baatay awradii ilaahay ku siiyay baad shilimaad siisatay shilimaad baasi raqiis baatay gabdhaha Soomaaliyeed oo karaamada iyo quruxda iyo anshaxa iyo edabta lehna weligood magacooda hoos u dhigmayso sida ay madaxa noogu saaran yihiin bay noogu saarnaanayaan sida ay dal kasta ay tagaan qiimo ugu leeyihiin ayay qiimo ugu lahaanayaan xijaabkooda iyo sharafkooda iyo dhaqankooda iyo diintooda iyagoo watana heer iyo horumar way gaarayaan sida adduunyada uga gaareen meel kasto ay gabar Soomaaliyeed joogto ogow iyada xijaaban bay heer gaaraysa tooda ugu liidatana waa tan adigoo kale ah oo qaawanaanta wax ku doonto waar waxaan ka yaabay oo la yaabay naagtii xumaata iyo ninkii xumaada oo balaaya qaadato Soomaaliga ku soo noqdaan adeero gacaliyo magaca noo daaya oo bala sheegto baas sheegto ma isugu kay dhijinaysan kuwa arkaysa diinta ka baxaya Soomaaliga ku soo noqonaya waxay ka culimadii bay caayayaan oo dalkii bay caayayaan oo noloshii bay caayayaan oo degaankii bay caayayaan naag baa iyaduna bala qaadata noqonaysa gabdhihii bay ku soo noqonaysa bal ma dadka aad u ordaysaan oo danta ka doonaysaan ku ekaataan sababtoo ah kuma qanacsana marxalada tan iyo waxa kan ay ku jiraan dadka kan ay u tageen ma doonayaan dareen ahaan iyo dareen ahaanba ma doonayaan wax ogyihiin dad dufoobay inay yihiin wax ogyihiin dadka kan dalkooda iyo deegaankooda iyo dhaqankooda iyo diintooda wax ka sheegaya oo dufoobay inaysan toodana u daahayn sida darteed ayay xumaantadiina kula soo noqonayaan annaguna sanka iyo afkaanu ka qabsanaynaa naayaah taasaan sheegaya ilaahay ha ku hanuuniyo hadduu hanuun kuu qoran yahay ma haddii kale baa hoosta kaa gashay mar horeba kaa gashay naa magacaaba iyo magaca noo daa haddaad isu aragto naa qurux badan inaad tahay wallaahi haddii aad xijaab xirato aad is asturto ood maanta ilaahay u noqoto waad qurux badnaanaysa laakiin ma sidaa aad tahay oo dhabanada aad is leedahay dhabanadan yar ma garanaysaa ee tubaaka ku cunayo aad moodo foolxumaa tahay nobody needs you ragga Soomaaliyeed baa doona iyo ragga Soomaaliyeed nin kasta oo Soomaali markuu arko sanku faraag gashada dadka Soomaaliyeed waxa leeyahay waa dhaqankeena iyo diinteena inaga u baahan oo wallahi iyadu inooma baahna dhaqankeena inay laashano inaga u baahan diinteena inay laashano inaga u baahan dhashan iyo dhalaankeena iyo nafteena daawo u noqonaysa ma hadii kale dahoog baynu galeynaa iyo halaag ma garanaysaa dhibaatadiisa wata taas waxa leeyahay naya raxmadda ilaahay laga ma qusto ilaahay waa hanuuniye ku doonu hanuuniya ilaahay ha ku hanuuniya hadduu hanuun kuu qoray naama haddii kale balaayo ya ilaahay dadka muuqaalkaaga foosha xun ha ka qabto jahannamada tanaad ciyaarta moodaysona ma aha caaga kanaad ku ciyaarto ka kulul wallaahi ka kulul iyo bilaahi ya tallah jahannama aglibaati luqadaad ku hadlaysa xataa waxa weeye kuma hadli taqaana falxumadaada iyo dhaqan xumadaada naa isku xisho oo waalidkeed waxa yaan loo caayin oo eheladeeda yaan loo caayin oo yaan degaan loo qaban oo yaan dad loo qaban waa naag iyadu iskeed u difooday oo u dulooday war waxaad kaga yaabaysaa dadka Soomaaliyeed qof xun bay arkayaan markaasi qoomkiisa iyo qabiilkiisa iyo reerkiisa oo dhan wada jacfeenaya adeero ma yaga isla wax kala dhalaysaan balada tana dhalaysaan ilaahay aanu ka magan galnay oo masiibooyinkaas waxa weeye dhashay dhalaankan aanu ka hayay balada fidaysay balana assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh